بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Ustaad Xuseen Maxamed Cabdiraxmaan. waxaan jeclaystay inaan maanta idinla wadaago 12 tenses-kii mid ka mid ah tense koowaad oo loo yaqaano ama lagu magacaabo present continuous tense. Let's casharka sii gudagalno. Present continuous tense maxaa la lahaa? Present continuous tense waxaa la lahaa slide-kan koowaad waxaynu ku arki doonaa present continuous tense iyo qeexitaankiisa iyo example iyo weliba shuruucdiisa ayaan ku baran doonaa insha Allah. Okay, aan bilowno. What is present continuous tense? Present continuous tense maxaa la lahaa? What is the rule? waa maxay sharciga of present continuous tense? Present continuous tense sharcigiisa waa maxay? Give an example. Example is tusaalooyin naga sii. Okay, qeexitaankood waxaan oranaynaa present continuous tense is used waxaa loo isticmaalaa to express an action which is happening now. Present continuous tense waxaa la lahaa waa ficil ama fal dhacaya hadda. waa fal hadda dhacay. Rule sharcigiisa ama sharciga aad adeegsan doonto marka aad rabto inaad jumladan ka dhigtid present continuous tense. Subject plus am is a plus verb plus ing plus object. Subjectiga waa I. Subjectiga qaadanaysa haddii subjectiga uu yahay I am baad raacinaysaa. haddii uu yahay he she it waxaa raacin doontaa is. haddii uu yahay we you they intaas waxaad raacin doontaa are baad raacin doontaa. verbkii tusaale it buu ahaa ing baa kusii darsan doontaa. ficilkii ayaad ku dari doontaa ing kadibna object baad u dambaysiin doontaa oo ah wixii aad markaas sameynaysay. Okay, exampleska aan guda galno. Example tusaalekood wuxuu noqonayaa I am playing football. anigu waxaan ciyaarayaa kubad banooni ayaan dheelooyaa. aniga am playing marka am is artis maxay noqonaysaa marka? waxay noqonaysaa auxiliary verb baa loo yaqaanaa. auxiliary verb. I am playing football. aniga kubad baan ciyaarayaa. He is eating banana. haddii maxaan dhahnay verb waxaa lagu darayaa ing. He is eating banana. isaga moos u cunayaa. She maxay qaadan jirtay is. She is cooking lunch. ayado qaday karinaysaa. They are reading lessons. ayaga casharadooda ay akhrisanayaan. We are drinking water. anaga biyo ayaan caboynaa. You are speaking to me. marka meeshan yaa lagu qaldoomin. You sometimes laba meel loo isticmaalaa. mar waxaan u isticmaali karnaa dad badan oo aan dhahayno you are speaking to me. idinka aniga ila hadloosin. You are speaking to me. adiga aniga ila hadloosaa. You marka adigana waa la dhihi karaa. dad badan oo loo adeegsan karaa oo niman naaga isugu jiro ama niman ha aadaan ama naaga ha ahaadaan. marka you dad marba haddii laba iyo wax ka badan ay yihiin waxaad dhahaysaa you. haddii uu hal qof uu yahayna you baad dhahaysaa. marka waxaad leedahay you are speaking to me. adiga aniga ila hadloosaa ama idinka anaa ila hadloosiin. It is eating meat. ayada hilib ayay cunaysaa. aan u gudubno sidee looga dhigaa affirmative wax la yiraahdo ayaa jira iyo wax la yiraahdo negative. Affirmative wuxuu noqon doonaa waa sidii hore uun. He is waa jumlad iska caadi ah. Affirmative waxaa laga wadaa jumlad iska caadi ah. marka waxaan oranaynaa affirmative wuxuu noqonayaa he is eating banana. isaga wuxuu cunayaa moos. She is cooking lunch. ayada waxay karinaysaa qado. They are reading lessons. ayaga waxay akhrisanayaan casharadooda. We are drinking water. anaga waxaan cabaynaa biyo. You are speaking to me. adiga aniga ila hadlaysaa ama you are speaking to me ama idinka aniga ila hadlaysaan. It is eating meat. ayada waxay cunaysaa hilib. I am playing football. hadday am playing football ayaan kasoo tagay. I am takooday ahayd ba saan filayo like halkaan isdaba mari. sorry. I am playing football. anigu waxaan ciyaarayaa kubad. intaas waxay ahaayeen affirmative ama hadal iska caadi ah. negative ka imaano ama diidmada. negative wuxuuna leeyahay negative.
I am not playing football anigu kubad ma ciyaaroyi. He is not eating banana isaga moos ma cunooyo. She is not cooking lunch ayada qada ma karinoyso. They are not reading lessons ayaga casharadooda ma akhrisanayaan ma ba akhrisanayaan casharada waa la diidaya diidmo wey. We are not drinking water anaga biyo ma caboyno. You are not speaking to me adiga aniga ilama hadlooysid ama idinka aniga ilama hadlaysaan ilama hadlooysiin. It is not eating meat ayada hilib ma cunayso. It's not eating meat ayada hilib ma cunayso. Let's also gudgalno interrogative marka halkan waxa lagu yiri waxaad u bedeshaa question su'aal and question su'aal ka dhig and iyo negative question su'aal ka dhig question sorry waa qalday question aan qoray w ka dhigay meeshaas sorry khalad way meeshaan dib ma leh marka aan ka dhigno interrogative means question la loo jeedaa. Interrogative haddii aan maqshid iyo haddii aan maqshid question ba waa same oo waxba ma ku kala duwanaa. Okay aan sii gudgalno I am playing football aan soo qaadanay oo ahayd affirmative. waxaan kala soo qaadanay I am not playing football oo ahayd negative. hadda marka waxaan u gudgalaynaa question ama interrogative ama question ka waxa la soo hormarin doonaa auxiliary verbs ka ayaa la soo hormarin doonaa. tusaale am I playing football ma aniga kubad ciyaaraya. Is he eating banana ma isaga moos cunaya. Is she cooking lunch ma ayada qada karinayso. Are they reading lessons ma ayaga casharadooda akhrisanayaan. Are we drinking water ma anaga biyo caboyno. u fiirsiyaa waa su'aal. Are you speaking to me adiga ma aniga ila hadlaysaa. Are you speaking to me waxaan kala dhihi karnaa ma aniga ila hadlooysiin. Is it eating meat ayada ma hilib bay cunaysaa. Okay aan sii gudgalno negative with interrogative oo ah ama loola jeedo negative with question same hadaa idin soo sheegay interrogative iyo question waa same wax ma ku kala duwanaa. Okay negative with interrogative aan dhahno ama negative with question mid ka hartooda oran kartaa aan dhahno marka aan sii gudgalno I am not yaday tan marka waa negative oo diidmo ah oo lagu sii daray question. calaamad su'aalkaas oo question mark loo yaqaano waa inaad gadaal ka raacisaa. waa interrogative iyo negative interrogative labadooda waa inaad raacisaa calaamad loo yaqaano question mark loo yaqaano. Okay I'm not I playing football aniga kubad ma ciyaarooyi miya. Is not he eating banana isaga moos ma cunooyo miya. maxaa lagu yiri ma cunooyo miya. meeshaas marka waxaa ka dareemaysaa inay ku jirto negative diidman inay ku jirto question inay tahay. Is not she cooking lunch iyada qada ma karinayso miya. Are not they reading lessons ayaga casharadooda ma akhrisanayaan miya. Are not we drinking water anaga biyo ma caboyno miya. Are not you speaking to me adiga aniga ma ila hadlooysid miya ama are not you speaking to me idinka aniga ma ila hadlooysaan miya. Is not it eating meat ayada hilib ma cunayso miya. halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa present continuous tense insha Allah tookadan markeeda xigto insha Allah waxaan soo gelin doonaa haduu Ilaahay ee baraali ka noqdo tense ku sii xigay oo ah simple present tense ayaan soo gelin doonaa ilaa aan ka dhameeyno insha Allah 12 tense xogaa waqtiga inuu igu yaraado insha Allah waan soo wada gelin doonaa 12 tense iyo libsada ay isugu badbedelo insha Allah. وما سنتين داوشدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتيجر حسني أو إذن له سداسيو وحبر الشهر مر له.